السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ku tusin doonaa sida loo isticmaalo Nero 9 loona duubo CD and DVD data. ila soco casharkeena maanta Nero 9 ayuu ku saabsan yahay. waxaan folderkan ku muuqda waa Nero 9 waa furaysa open ayaa leedahay. kan waa setupka midkaasna serial numberska. marka setupka right click open waa sida loo install gareeyo. shaxdan ayaa ku soo bixisa qaabkan aad ujeedid loading and installing ayuu sameynayaan. midkaas buluuga ayuu buuxinayaa. markuu gaaro uu dhamaado uu boqolkiiba boqol macnaha uu buuxsamo kadib waxaa ku muuqan doonta waxaan ku xig. kadib san ayaa ku soo bixisa Nero 9. halkaas soo furaysa waxaa ka dooranaysaa luqadda aad taqaanid. English ku dhaaf international. kadib next ayaa dhehaysaa. waa haddana next mar labaad waa ku celinaysaa. halkan waxaa gelinaysaa serial numberka. serial numberka adigoo gelin gudbi kartid. marka serial numberka waa kan saaran yahay halkan right click open. midka uu koreeyo waa serial numberka. highlight ayaan saarayaa kulli baan dooranayaa. kadib waxaan sameynayaa copy ayaan ku sameynayaa right click copy. waxaan paste ku dhihi doonaa godka serial numberka ee Nero right click paste. kadib aka calaamad sax ah lagu saaray serial ku jira next ayaa ku dhufanaya. kadib halkaas waxaad dooranaysaa I accept license check marka ay saaraysaa. kadib next ayaa ku dhufanaya mar labaad. oo yara sugaysaa. kadib haddana waxaa ku celinaya mar labaad next. halkan typical ayaa dooranaysaa. midka dooran oo ku dhaafaysaa keliga ayaa siinaya. kadib waxaa imaanaysaa haddana next. haddana wuxuu sameynayaa installation howsha ayuu sameynayaa loading. kalarkaas ku muuqda cagaarka waa installka capacityga alshan durationka waqtiga uu socnaa. markuu buuxsamo kadib way ku dhamaatay installationka Nero 9. marka waa sugeynaa intay ka buuxsamayso. boqolkiiba 80 ayay maraysaa. boqolkiiba 97 boqolkiiba boqol uu dhameeyay uu buuxsamay. marka natiijada ayaan sugeynaa. aka uu dhameeyay. marka waxaa ku dhufanaysaan next. aka uu dhameeyay. the installation was successful. install Nero 9 trial. marka way dhamaatay waa ku guuleysatay sida la duubo install gareynaysid. kadib hadda waxaan ku tusinayaa inoo xigta sida aan u duubi lahaa data aan CD ugu duuban lahaa. halkan desktopka ay ku soo kortay Nero Start Smart. marka waxaad duubeysid right click open ayaa leedahay. waa furaysaa programka Nero ayaa kicinaysaa open. saan ayaa ku soo bixiso. kaas waa data panning, audio panning, audio ripping. halkaas ma rip and pan. marka la duwaysid video iyo sawiro iyo rip and pan ayaa imanaysaa. marka hadda dataan duweynaa audio pan video disk. marka videos aad duwaysid copy disk. kaas waa copy. kan waa copy disk. copy disk alshan cajal CD oo ama DVD wax ku jiro. marka u copy-naysid cajalka loo faaro khalaas macnaha. marka hadda data panning ayaa isticmaalanaa sida datada loo duubo qaybtan koowaad. kaas ayaa data panning click siinaysaa. kadib add aad ku dhufanaysaa. add click ay siinaysid datada aad ugu soo dartid. datada halka ay ku taala ayaa kasoo qaadanaysaa my documents and my
computer ama desktop ama local disk C ama D hadba meesha ku jirto marka desktop ay taalaa folderkaas macluumaad ay ku qoran tahay aad ay leedahay open double click asina frame data aan rabna CD aan ku duubto intaan 10 waayo control A ayaan sameynaa dhamaan oo doornaa kadib aad aan ku dhufnaa waxay rasuulisa marka tiyo data ka akhrinayo kadib close ayaa dhehaysaa waa taabay ku taalaa data intaas ayaan u baahanahay inaan ku duubto CD kadib waxaa sameynaysaa marka intaas aad doortid cadaalada cabirkeeda iyo inta faaruq ah iyo inta wax ay ka dhiman tahay hadii ziyaada ay tahay isaga kuu sheegayo hadday naaqus tahayna waa arkaysaa cadaalad CD hadday macnaha ziyaada noqoto waxaa isku dhahayaa DVD geli CD datada ay ka badan tahay marka hadda ila soco waa arki doontaa aniga hadda datadeeda kama badna CD saaska intaas waa حتى 700 ميجا بايت مدama CD waa 702 ميجا بايت kadib waxaa ku dhufanaysaa ban ayaa ku dhufanaysaa waxuu ku weydiinaya please insert writable disk fadlan geli cadaalad CD ama DVD oo faaruqa si datada ay ugu duubanto marka automatically ayuu soo baxayaa marka gelisid cadaalada si automatic ayaa ugu duubaysa datada faraha ka qaday wax ma sameynaysid adiga systemka cadaalad kaliisa ayaa soo baxaysa cadaalad faaruqa ay gelinay kadib waa ku celinaysaa isaga si automatic ah soo qabsanaya waa kan data banning halkan cadaalad faaruq waa folderka open waxaan ku muuqdaa CD faaruq oo aan ku dirin wax data ah right click properties cabirkeedan ku tusinayaa waa ka 700 ميجا بايت waa faaruq wax kuma jiro laakiin hadda ayaan wax ku duubayaa wax kuma jiro hadda waa faaruq okay halkaas CD drive ku qornaa dhow waxaad ku arki doontaa magaca datada aan duubayo hadda wuxuu sameynayaa datada ayuu akhrinayaa oo wuxuu ku shubayaa tracks CD-ga markuu dhameeyo waa arki doontaa weli waan sugaynaa hadda xoogaa wax yar ay ku qaadanaysaa hadda rarsan Neuron9 ما شاء الله software badan way jiraan oo wax lagu duubto laakiin hadda aniga waxaan ku tusinayaa Neuron9 sidaan filayo uu dhameeyaa waxyar ayaa ka harsan data banning boqolkiiba boqol markuu dhameeyo duubista waxaa arkaysa CD DVD drive-ka oo automatically soo baxaya cadaalad datada kadib iska xir barnaamijka cadaalad kale drive-ka si aad u aragto in datada ay ku duubantay cadaalada uu dhameeyo marka cadaalada kaliya soo baxaysa automatic midkan okay ayaa isaga dhufanaysaa cadaalada way soo baxday banaanka ay taalaa marka ku celinaysaa cadaalada si aad u aragtid in datada ay ku duubantay iyo in kale marka hadda waxaan furayaa my computer oo waxaan fiirinayaa CD drive-ka geli cadaalada hadda duubtay ay gelinaysaa cadaalada hadda duubtay kadib waxaa wuxuu soo akhrinayaa datada loading oo yar sugaysaa intuu cadaalada ka soo akhrinayo halkaas oo ay qorantay CD drive waxaa ku arki doontaa baro waa ka sida ku muuqata cadaalada waa CD wayna ku jirtaa datada ka baro size ka 187 MB ayaa gashay data intaas ayaa gashay kadib right click afrayna cadaalada open waxaan ka dhex fiirinayaa datadan ay ku jirto waa ka way ku jirtaa folderdan waa ujeedadu 10 oo aan hore u duubay oo aan CD ku duubay baro sida Windows loo waxyeelo iskida wax leeyahay adiga ashira kordo asharkan sida loo duubo data wax walba computerka ku jira marka hal mar duubaysid ayaa loo yaqaan data banning asharkan waxayna xigi doonaa ashara badan oo sida loo duubo MP3 audio MPEG iyo video CD halkan waa sida loo isticmaalo TeamViewer cadaalada dhexdeeda waaye cadaalada aan hadda duubnay بس خلاص 10 كنا معناتها انت سيوك اوكي سيدا لو دو داتا انا قاعد استعمالها نيرو 9
waan rajaynaa inaad casharkan si fiican u fahantay. Subscribe, comment and rate waa arrimahan oo idin leh sida iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bar ama baro.